بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هبه wanaagsan dhamaan meel ka soo nagaysanaysan dhageystayaal halkani waa Abbas Madani muuqaalkan si shargare arrimo dhowr ah ayaan ka hadli doonaa. Waxaan rabaa dadka wax bartay ee qoyahanka reer SSC Khaatumo waxa garadka qaybaha kala duwan bulshada reer SSC Khaatumo dalka kuwa jooga ee dibadda sameynay muuqaalkan isgaarsiiyaan oo meel dheer ka tuuran si uu aan u dhageystaan. Ugu horeyn waxaan rabaa inaan ka warbixiyo guddiga dastuur ee la magacaabay xalay oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka SSC Khaatumo Cabdiqaadir Axmed Cali. Marka koowaad guddiga horta dastuur la sameeyo waa muhiim waa soo dhaweynayaa وهري وعدتك أتاجر سنة هذا أركتدا قبل أيان هاي إن دستور أنو سماه صنّه ما دام أنو كبح إنه حلقي وحوي ترسيش كالجورك إن الدستور أنو يرانو درافت هوا حبر نقطة لكن مهمة هو إن دستور لا يشوا أريتاسي وينو سلوا ذا جرنا مهمة أنو الله هاي تاسوا قدر لكن مركي أساسي خاتم الله أساسي رنتي وقتي ستوشك اللي أساسي حل أدق به دجال با إن صارنا عدو با مجالده إني تشوجي واحد بدنه وحوي وحلاقي قبل كري أما وحلاقي صحي كري ما يسنشرين وحيد كقبصته بهاد دد بدن ودد كنا من دقة كنا والله جروسية كبيعين وحلا الله والرجل دجال بيصوغ جرين ولا بس لكم الجار قاتين لا بس كبعدنا وحنلكم الجار بينو كبحنا شروينا دعي شروينها وحلاق قبل دونا بيلها دجال سول سناك عين يحيلان beelaha soo shir loo qabanaya kadibna waxa maamulka kumeelgaarka ka dambeyn doona maamul dhameystiran oo hadii la kuureeyay dowlad goboleeda marka labada sano ee kumeelgaarka laga baxo dowladda federaalku way inoo aqoonsatay waxay tir waxaan u aqoonsanahay dowlad maamulkaasi inuu yahay maamul kumeelgaara way intaan inaga waxa ahad qarameedka ku qoranay dagaal baynu galay dagaalka ku guuleysanay laba sano kadib baa la yimid labadii sano shan bilood ba ka dhimay maamulada jibba dhacday dowladnimadii waxa way stability waa la dhisay okay waxa hadda marka kaabeey ugu soo hayeen kumeelgaarkana ka baxno marka qaabkii baynu kumeelgaar uga baxnaa waxaan uga baxnaa intii hore SSC Khaatumo wada dhisatay ee madhimaan ahayd ee faqashini ahayd iyo dhul bahantay gari koombe mise beelihii kala loo yeerayo maamulkii laga qeybgalay maadaama juqraafiyan ay suuqi khasbayso inaan maamul wada yeelano may talada saxda waxa weeye waa in beelihii la isu raadiyo weeye maamulkii laga wada qeyb galiyo taladii la ballaariyo Soomaalidu waxay tiraahdaa taladan la roogin waa lagu rafaadaa madaxweyne Cabdiqaadir Axmed Cali dadkii kala shaqeeyay ee taageersanaa dastuurka la sameeyo ayaan ahaa dadkii baarlamaanku inay meel mariyaan oo runtii xildhibaanada cadaadis badan saaray oo la hadlay oo khadka taleefanka lahaa war Khaatumo dastuur inaynu yeelano oo u baahanahay heshiisna laga gaaro ayaan ka mid ahaa arintii Ilaahay fadligiisa wanaagsan bay noogu dhamaatay heshiis baa laga gaaray arintaas haddaba ballamihii madaxtooyadu way ka baxday ballamaha waxa weeye in guddiga dastuurka waxa weeye qori doonta inay noqoto guddi beelihii gobolada soo sanaga ayni Highland ay iska dhaxal arkaan meesha ma muuqato guddiga xay soo baxday idgooniyo badanta ma ana filayn heshiiska lagu heshiiyay taa ma ahayn waxa ahayn beelaha laga qayb galiyo oo beelaha dhan iska arkaan ila meesha waxa ka dhismi doona maamul ballaaran oo waqooyi bari doona loo bixiyo laakiin maamul ballaaran ba ka dhismi doona oo dowlad goboleeda cidda marka midiyada daabka gacanta ku haysa waa reer SSC Khaatumo iyo xukuumadda hadda jirta madaxweyne Farniyo hogaaminayo xalay waxa lagu dhawaaqay guddi 15 xubnood 15 ka xubnood 12 kamid ah dhul bahanta weeye inta kale waa reeraha aad u faqashini iyo madhimaan cid kale inaana ku tirma filay waa intaas weeye hadda heshiiskii la galeen sidaas ma ahayn dastuur marka ayaa loo qorayaa dastuur waxa loo qorayaa cidii qorata lagu xukumayaa dastuur cidii member ka ahaata cidda qoraysa lagu xukumayaa waayahay sidee marka ku suurto galaysaa ama draft dheh ama si kala dheh waxa weeye hadii la ku royaa dastuur waxa weeye cid gooni qoratay in cid kale lagu xukumo cid aan tala laga siin oo aan laga qayb galin si loogu xukumi karaa lagu xukumi karo macnaheedu ma aha inaan leeyahay 15 kan xubnood inaan si gaar ah u dhaliilay ma aha waa muwaadiniin xaq bay u leeyihiin hase haatee hadaan laftigooda waxa weeye inay qabtaan dastuurka qaran kama xumin laakiin muhiimaddu waxa weeye waxaan doonaynaa waxa weeye wax loo wada dhan yahay oo wada ogol ah baan doonaynaa maadaama maamulka ku meelgaar ka baxayo madaxweynuhu
baarlamaankii sixi lahaa ee khaladaadka xukuumaddu gasho sixi lahaa meesha uu ka saaray baarlamaanka wuxuu ka dhigtay qaarna wuxuu wasiiro ka dhigtay sideed kamid ah wasiiro way 10 kamid ah waxa lagu yiri waa qandaraaslayaal mid bariisku xoreyay mid waxa weey saliidu xoreyay waxa lagu mid burku xoreyay waxa lagu mid sokortu xoreyay waxa lagu xitaa qaar baa waxa la sheegay xildhibaanada qaar u xoreey yihiin ana madaxtooyada geeyo xitaa xildhibaanada qaar baa xoreey yihiin baarlamaankii golihii sharci dejinta ahaa ee xukuumadda toosin lahaa ee madaxweynaha iyo kabinetkiisa toosin lahaa waxa weey waa xukuumadda ku dhaxmelmeen golihii sharci dejinta weey golihii wax kala waxa weey kala roorogi lahaa weey golihii wax kala shaandheyn lahaa weey meesha waana golaha ugu muhiimsan dawladnimada sideedaba dawladnimo waa baarlamaanka weey hadaan baarlamaan jirin oo baarlamaanku daciifo xukuumaddu illa xisaabta ma jirto sharciga wax weey la kuuray ayay ku xadgudubtaa rabaa inaan u sheego xukuumadda guddigani guddi absolutely aynu kaga bixi karno xilliga adag ama dastuurka ma aha معنا شخصية دليل تطبيق ونحسب بقى كل شيء قبل ونحسب بقى كل شيء قيمة بدن علماء الدين لكن ركع قارب أقونت الولاية لكن مشورة تقول أقونت الشرعية ما لها سيد إذا بقف عمرك الدستور قريب وين لا بقضب أما وين الدستور كي لو جبرت الشرعية جرنا أيوه أما وين هيدو دولدين أو رمها الشرعية وكسر الشقي ما هذا اللي هذا كوري عباس مدني وكالة دستور قر عباس مدني وكالة دستور قر معها وين لو فيريا خبرتي وين لو فيريا aqoonti وين لو فيريا at least qofku inuu practical ahaan ugu soo shaqeeyay sababta way dastuurka ciyaar maaha waa hay'adihii waa nidaamkii lagu dhigi lahaa dawladnimadan waa inuu garan karaa awoodii maxkamad waa inuu garan karaa awoodii wasaaradaha waa inuu garan karaa awoodii madaxweynaha waa inuu garan karaa awoodii hay'adaha kala duwan ee dawladda qofku waa inuu khibrad u leeyahay waa inuu aqoonteedii leeyahay way taaliftigu daliil baan anigu ka wadaa وحاجة لفتي وكده لسنة حاجة سامي قيبسك لفتي وكده لسنة واي سيد البهانت لبي توح نوقع عن كران ما عمل كميان البهانت لا الله حين خلابات ك ما ملضة كلكوك عن إنه حكبر نووي وحيد ملحوينه بلنتي وقاضي إنه لفتي قد أوفيه هل كان ورثقلي بعد شوقه تلكين والديار هو إنه حنا نلستان محل الله يجنور قرينا يعني جغرافي هم بسوق خصبية عرقابين ويدقنا ومدة صدحات دت إنه لنوي ومدة صدحات ودتكي إن له الجموي ومدة أفراد وإن له البدرين وتلكين وي إسكو جغرافي بأنه هاي ممكن وإسكو ظروف وي ما أنت الديار وي أنا كل والله السياسي تورسقلي حقان كعصوم آخر ما لحريري سياسيين كلو دون حوي ورسقلي لما الديار بيويهين إن الدولة نمداس أي كقب كلام لكن مدحدينو sida ficiladu ka muuqata diyaar uma aha xagee marka la inoo wadaa waxa la inoo wadaa inaynu ku soo laabano madaxweyne dhul bahanta madaxweyne ku xidhan dhul bahanta gudoomiye baarlamaan dhul bahanta waxaas adduunyada kama shaqeyso dawladnimada aynu barano dadka aynu dawladnimada wax ka siino dadka walaalaheena aynu soo dhaweyno ha haddii la inoogu cudur daaray dawladdan inay ku meel gaar tahay oo xilli khatar oo xaalad dagaal aynu ku jirnay la dhisay cudur daar beenan maanta se cudur daar yeelan mayno reer istiqaatubo madaxweynaha cidii la xisaabtami lahayd waa baarlamaankii toban qandaraslayaal waa horulayaal qaar baa raashin kala duwan u xidhan oo interest gaar ah ay ku qabaan qaarkood waa wasiiro madaxweynaha sida waa khalad ma oran karaan waana hay'adii la doonayay sharci dejinta inay wax saxdo oo wax bedesho war aynu ka fakirro mustaqbalka fog aynu ka fakirro yeyna ka fakirin waxa way sandareeray wax yar hadii la kureeyay hoose oo maanta ka fakirina anigu totally waxaan doonaynaa waa in maamulka la ballaariyo dadka walaaladeen ee la hilbidiriray ee diyaarka inoo ee ina ogol ee aynu isku duruufta sodonka sano ahayn ee dhulkeena la wada sheeganayo maanta waa diyaar weeye ma hay la ignore gareeyama waxaan u baahaneen oo dawladda kula heshiinay in guddiga madaxweynuhu dhisi doono ay noqoto guddi ay ka soo dhex muuqdaan beeraha warsangali dhulbahanta kaska qabe madhimaan dhulbahanta hadii la kureeyay gari kombe moqt faqashini inay ka soo mid noqdaan oo iska dhaxarka ma la doonay laakiin ma muuqan 12 lagu leeyahay dhulbahanta dastuurka marka yaa loo qorayaa nimayo sidaan wax ka bedelo walaalayaal sidaan wax ka bedelo ruuxani siyaasad ma aha ku dhaqmaysan waliba dawladdan la hadlayaa wadadan aan haysaana waa qarta jeex weey xaqiiq weey dastuur waa la qori
وحوي هدي له كور أما درفت هذا أما سوء فشالة هلو ميل مريو لكن دستور كان وحالو قرية أو تلاد وحكله عدة معمول كان منبر كنا قدوا أنت وحكوا يا ناس معمول كان وحكي يا ناس لكن الدستور هناك قلنا ما ولا لا عندها فرنه عندها هاي الفرنه حكومة قابك هذا أول رقم يسوع وحام موقت إنما كم مهرنتي بقول لك يسرق إن كم مهرنتي بقى موقتها ويسكسوا كوبس الصولي عين دستور كان إنه حد كبا حدود كبا لو قرية سامي قيبسي بيرح لو قرية حل ما ندا كويا لهاين marka xagee lagu qoray hadki arintaan wax ka bedelo waxaan rabnaa anagu waan doonaynaa madaxweynaha la hadlaya xukuumaddiisa maamul loo wada dhigay raadinayna anagu warwarsangal hadii la waayo way dhahan war diyaar manihin war walaalayaal diyaar idimaniin war walaal waxba idila dhisameyn war walaal marka aragnay de wax way hawsheena marka wada karaa laakiin warsangal iyo diyaara أنا بيترافق ما كل هذا منو يدي شيء عرفت واحد كوكا ده بدي شيء أكو قرصان حكومة ديني أما مدعوين فردية تانس بهالك كأركي هدي ورسنجلي معمول كقيب كان نقضه وحنا الاستاذ إنا وصدق وصلى بنين أيو استسلم مدعوين ساس ما كرسي هو عرف إلهي بقى قري ها أنا ولفت كمان أنت مدعوين قريسي وحو عدي وجد مترت إلهي بقى وحو كو عرفيه ما أنت تصدق بلود شرت عرفته هذا إلهي كو أبوري بقى إلهي كو قرينا مدحونا دولة استخاطبنا قريس هذا سؤال لا بني سيدي هذا سؤال لا بني إلهي بقى كرسي مصر كإلهي بقى بحية مدحويني كيف فكر مستقبل كدتك كرير أساسي كيف فكر أو إلهي أو عداوتها وعدو كوها لا رصفيري أو كوا تراضح كوسينية aan dadka goob aan marxaladda deegaanka ka turjumayn taladooda wax qaadan inta talada ku siinaysa ee wax ku oolka taladooda dhigeyso madaxweyne legacy ka tag shacbi midaysan bad haysataa dadku midaysan ku taageersan bad haysataa khalad iyo saxba laakiin khaladka waa ka qabanayna madaxweyne baarlamaanka waad burburisay sharci dejintii qaybna team harowle waad ka dhigtay qadaraashaad siisay قيمنا وسيرات كدغتي وانا عيد كل حسابته بلاهد وانا يسمان بين نقدون لكن انا waa ka madax banaanahay si madax banaan baan anagu madaxweyne wixii arfaysa ku siirayna mid kale madaxweyne maalo buuq wax ku helimays xukuumadii bishii May 2024 sidaan ku meel marinay la og yahay waxa way arinta dastuurka la og yahay sidaan ku meel marinay hatta madaxweyne maalo buuq wax ku heshay maaha ninba wax laga hayaa taliye waxa way shub quraanka faatixada نبى قرآن فاتحة مرة بآخر سنة مركو روانه وقال أما وحوف اللي فاتحة بآخر فاتحة مركز وحوي ور فاتحة ده ما له بحوي حكوه اللي ميسي قرآن كيت سكلو جدو حاليا المدح وينه ما أنا بوق يصوحن تمدح عن الصورة قال ما أنا حكوش تدخل مسير كأطب تدخل يسور عادي إجنور كتشوش ثلاثة ولا يقول لي من حوي ديجان كاتا dadku wax way ogna kooban wax ku dhalisan ayaa jiro hogaaminta dhalisan laakiin wax kasta waxa la fiirinaya cadawga ugu hararsan madaxweyne dadka duruufta ka faa'iideysan dadka talada maqal teamka kugu xeeran taladaada ka shaqeeymayaan inaad soo laabatay ka shaqeeymayaan waxay ka shaqeynayeen waa shams lagu qaado xilliga electionka in waa shams lagu qaado waxa way ay ka shaqeynayaan waxa way warsagal raadi kan hadaydan keenana anaga keenana ha كاسك قبر هذه شحذا وطلع لك تصلتها هل علمنا ملا هل قدي ممبر كمان الدولة وانا صول وانا لما تلقين وهرتيوي رادي بيرها كلا رئيس أساسي مدمان له افقشين لنا حقوق وانا اكسنها كهلا المملك نلبهنتها استويا هلا جوتشيو ها دولة نمدو وسوشيال كونتراكت وي ودوه واحد لو داقوي وواحد مدفع لو ذلي وشريتان كده الى انت لو ميسيهاي madaxweyne indhaha fur dadka tiro koobka ee waxa weeye hadii la kuura talada khaldan ku siinay madaxweyne taladooda waxa qaadan arinta kale xildhibaanada hadda guddiga lagu daray xildhibaanku waa sharci dejinti weey waa ninkii wixii khaldanaa dawladda ka qaban lahaa si guddi madax banaan loogu diray kala nin xildhibaana la dastuur qor waa ninkii la rabay inuu saxda qaladka inuu hadii la ku kala saaro marka ma aha in dhaliilay guddiga rag badan qiimo badan gabdho badan qiimo badan ba ku jira laakiin guddi xaaladda inaga saari karta oo dastuur qori karta ma ku haboonta waa may qabiil ahaan iyo saami qaybsahan oo haboona qaar koodna khibrad wax weey loo malaha xaqiiq weey
marka arinta wax badan laga bedelo anigu waxaan rabnaa waxa weey dawlad loo wada dhan yahay oo la wada leeyahay oo gooyaha laga wada joogo oo warsangari dhul bahanta kaska qabe gari koombe fiqashini hadii la ku leeyahay iyo madhimaan ay qayb ka yimaadaan doonaan madaxweyne oo qurux badan oo waqooyiga Soomaaliya ka dhalata baan doonanaa oo full power maskaxdiina ha shaqeyso waxaan hooseed ku wareegaysana joojiye intaas ku soo gabagabeynaa insha Allah waxaan rajaynayaa talada inay qaataan golaha baarlamaanka fariinta ugu dambeeyay u diraya golaha baarlamaanka waxaan leeyahay war doorkina qaata sharci dejintii baa tiidin dadkii xukuumadda la xisabtay lahaa baatiin ama waxa isku soo baxaysaan team harulayaal oo team qandaraaslayaal baad noqonaysaan ama team golaha sharci dejinta oo shacbiga ka turjumayaan ayaad noqonaysaan ismaanta badan joojiye dawladda la xisabtama oo xukuumadda khalaadaadka galaysa ka qabta miyaan qof aqli leh oo aragti leh oo capacity leh miyaan idinku jirin golihii baarlamaanka sharaftiisa loo soo celiyo qiyamkiisa loo soo celiyo qiyamkiisa loo soo celiyo mid kale waxaan fariin u dirayaa nimankii candidate-ka ahaa ee madaxweynimada raadinayay meeyay iyaguna ma goor xeere fadal ka dhaceen bay rabaan inay mus soo dhahan idinkuna doorkina muujiya waxaan rabnaa dawladnimo loo wada dhan yahay gooyaha laga wada joogo runtii qurux badan cid walba iska dhax aragtay baynu doonaa insha Allah ta'ala inuu kumeelgaarka ka baxno insha Allah ta'ala intaas aan leeyahay khayr badan bay jiraan insha Allah waxyaaladeedu u badnaayeen dhiirigelin iyo aragti iyo talo soo jeedin bay waxa way hadii la kuurayay bay u badnaayeen waliba ma aha in media kaliya ka hadlo madaxweynaha waa gaarsiiya madaxweynaha waa gaarsiiya gudoomiyaha baarlamaanka kulli si barafad oo ugu sheega marka waxaan rabaa dadka dhan inay gaadho dadku dhan madaxweynaha iyo xukuumadda la taliyaan nin walba talooyinka gaarsii warnimayo si wanaagsan waxay noogu qurux badnaadaan in doonanaa insha Allah ta'ala dawladdeenu noqoto dawlad ballaaran baaxad leh xadkeeda iyo xuduudaha ballaaran yihiin doonanaa dad badan oo collection ay ku wada jiraan oo cudub iska dhax aragtay doonanaa insha Allah intaas aan leeyahay khayr badan bay jiraan insha Allah ta'ala. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.